ururka asal ayaa tababar socday muddo 2 maalmood ugu soo gabagabeeyay degmada Salaxley laamaha kala duwan ee adeegayaasha bulshada ulajeedada aqoon isweydaarsigan ayaa ku aadanaa nidaamka maamul wanaaga isla xisaabtanka hirgelinta maamul daadejinta dabargoynta musuqmaasuqa iyo ilaalinta xuquuqul insaanka aqoon kororsigan ayaa gaar ahaan waxa uu xoojin doonaa aqoonta maamul iyo mas'uuliyadeed ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlaya Cabdi Iidin Nuur oo ah ka qaybgalayaasha seminaarkan waxaanu carabka ku dhuftay inay aqoon ka faa'iideen seminaarkan sidoo kale gabagabadii seminaarkan waxaa ka hadlay Khadar Xasan iyo agaasimaha ururka asal Cabdi Shakuur Sulub Xirsi oo ka faalooday muhiimadda aqoon kororsiga uu leeyahay shacabka degmada Salaxley ururka asal waxa uu maanta aan ku soo gabagabeynaa tababar 2 cisho socday oo aan u qabanaynay adeegayaasha bulshada oo ka kala socday golaha deegaanka saraakiisha amniga maxkamadda degmada iyo qaybaha bulshada sida ururada haweenka iyo dhalinyarada tababarkan waxa ujeedadiisu ay ahayd kor u qaadka wacyiga aqoonta mas'uuliyiinta iyo qaybaha bulshada ee degmada Salaxley ee la xiriira dhanka maamul wanaaga ka asal ahaan sanadkan bilowgiisii bilownay ujeedada mashruucu waxa weeyaan kulay dawlad wanaag inta badan weyn maqbaqalaa laakiin dawlad wanaag mucdeeda marka loo soo daadego waxa weeyaan in cidii maamulka haysay iyo dadweynihii loo shaqeynayay ay noqdaan dad isku xidhan oo iska warhaya oo adeegiina sida ugu sahlan ee ugu fiican u gaadhay cidii loo baahnaa isla markaa bulshadiina ay sida ugu sahlan u gaari karto maamulkoodii isla xisaabtan jirayo cadcadaani jirto waxa weeyaan wax isweydiinay jirto gabagabadii waxaa soo afmeeray maayirka degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine oo aad u soo dhaweeyay ururka asal mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa ururkan asal oo runtii barnaamijka tababarka halkan ay ka sameeyeen uu kaalmo weyn noo yahay maamul ahaan isla markaana wuxuu kaalmo u yahay iyagana bulshadii maxaan ku raadayay ay ku dhaqnay degmada Salaxley oo runtii wax badan ka dareemay 2 maalmood ee halkan aad ku jirteen wax badan ka dareemay xuquuqda oo leeyahay qofka muwaadinka maamul daadjin macnaheeduna waxa weeyaan waa in dadka iyo waa in dadka loo fududeeyo loo dhaweeyo adeegyadii dawladda Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Home Cable TV degmada